kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen Mandeq Medical Center ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga mudane Jaamac Abdullaahi Ciidiid diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda iyo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Istanbul ilaa iyo 27 dhaqaatiir Soomaaliyeed oo takhasusaad kala duwan oo caafimaad ku sameeyay dalka Turkiga ayaa lagu dhiirigelinayay kulanka waxaana takhasusaadkooda iska kaashaday wasaaradaha caafimaadka ee Soomaaliya iyo Turkiga ganacsatadii kulanka goobjooga ka ahayd iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta takhasusaadka sameeyay ayaa ka hadlay goobta waxaan ahay sidoo kale dhaqaatiirta hadda qalinjibiyaasha gudoomiyahooda waan ku faraxsanahay inaan yani dhamaystay 4 sano oo takhasuskayga sidoo kale waan u mahadcelinayaa Mandeq Group oo sharaf noo sameysay safiirka Soomaaliya oo nagala soo qayb galay laba erey uun baan rabaa inaan iraahdo soo kooban mid waa wax yar aan ka dhahayo xaaladda caafimaadka Soomaaliya sidaan anigu u arko waayo qofka marka uu banaanka ka joogo taano dhaqaatiir ina arko oo Soomaali ah waxay ii tahay farxad aad u wanaagsan sidoo kale 6 bilood inaad wax barasho inta u yimaadiin oo ugu dambeys sanadkii takhasuskiina meeshaan nooga sheegteen laakiin waxaan jeclaan lahay maadaama aniga halkan waxaan ku barto waxyaalo badan aan soo arkay fikirkeygan in aan ku daro aan rabay tahay 6 bilood kalimaan sidoo kale ataajigana in aan asagana uu nood qaato ama uu ku darsado aan jeclaan lahay بعد ما هذا إلهي كشكو وحن وبعد علينا سفير كينا قالق سفير جامع سيدو كلا وقابل سنها لقان كي وحبر الشذا سفاردنا الصومالية الشيخ عبد العزيز سيدو كلا وحماد علينا الأمان لخاتيرتا صوماليات ذلك التركي ويمد أنا التخصص كود كوسميان وأنا وهم بلينا وأنا سود ويننا safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Turkiga mudane Jaamac Abdullaahi Ciidiid ayaa bogaadiyay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee takhasusaadka ku sameeyay dalkan Turkiga runtii xafladan oo lagu sagootinay dhaqaatiir takhasuskii dhameysatay laguna soo dhaweynay dhaqaatiir takhasuskii bilaabaya dalka Turkiga sidoo doctorku inoo sharaxayna ay yihiin qolada bilaabasa lodkii afraad oo Soomaaliya ama meel kale wax shaacada kaga soo baxay oo dalka Turkiga loo keenayo inay takhasus ku qaataan qof waliba wuxuu soo bartay inuu takhasus ku qaato dhaqaatiirtii professoradiisa uu la shaqeynayo wixii ka dhiman uu ka faa'iideysanayo technology-ga laftigiisa sida loo isticmaalo oo wadankan caafimaadkiisa aad baa loo horumariyay 20 sano ugu dambeysay arrintaas waxay noo tahay sharaf waxaan u mahadcelinaynaa Mandeq Medical Center oo runtii isxilqaankan dhinaca kale dhaqaatiirtan Soomaaliyeed ee takhasusaadka ku sameeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa kormeer ku tagay Mandeq Medical Center oo ah goob ay adeegyo kala duwan oo caafimaad ka helaan bulshada Soomaaliyeed Umar Caaqil warbaahinta qaranka magaalada Istanbul wadanka Turkiga